waxaa shirku socday looga hadlay sida haweenku saami uga heli lahaayeen dawladaha hoose ugana mid noqon lahaayeen awoodaha sare loona laba jibaari lahaa dadaalada socda mas'uuliyiinta shirka ka soo qayb gashay oo ka socday degmooyinka oo ka socda mashruuca JPLG ayaa ka hadlay aragti isdhaafsiga muddadii shirkan uu socday. ani hadda tusaale ahaan ardayd baan ahay waxaan bartaa siyaasad public administration baa bartaa waxaan jecelahay inaan wax maamulo waxaan jeclahay waxyaalo badan in dadkayga iyo ummadayda aan u qabto birito mustaqbalka aan hagi doono ama horjoog ahaan doono. horta caqabada koowaad oo jirtay wax weeyaan aniga dawlad ma lihin Soomaaliya dawlad ma leh maanta hadii dawlad sax ay jiri lahayd maanta halkan anagu maan nimaanin. dawladaha hoose waxa weeye gabdhihiin laga shaqo geliyo agaasimayaasha muxuu ahaa xogayaasha xisaabiyaasha meelahaas oo dhan in gabdhaha laga shaqo geliyo inuu waqti ka hadleen wallahi baahiyo badan baa qabnay horta baahiyuhu way iska badan yihiin dabcan waxna waa ka faa'iidnay waxyaalo badan oo aan experience aan haysan ba maanta helay oo marka deegaankayga ku laabano aan biri ku celin doono waxa kamid ah inay haweenku maxay iyagu isku tashadaan oo aan gaarsiin doono haweenka biri naga dambeeyo aan deegaankayga in maxaa la dhahaa haweenka maxaa la dhahaa wax laga siiyo kala golaha sare deegaanka. والله شركان وحياله بدن baa laga faa'iiday oo ku saleysan kor qaadida dhanka shaqada haweenku si ay uga qayb gal lahaayeen dawladaha hoose iyo maxaan ku iraahdaa degmooyinka shaqooyinka laga hayo haday noqoto waaxyaha dawladaha hoose haday noqoto saraakiisha sida khasnajiga xisaabiyaha xogayaha dawladda hoose xataa iyo sidii maarta ay isugu soo sharaxi lahaayeen laftigooda sida ay u noqon lahaayeen maayirada degmooyinka. haweenku waa diyaarsan yihiin waxa weeye haweenku waa diyaarsan yihiin laakiin badanaaba haweenka waxa moodaa inay jiro arrin garabootan ah oo haweenka maarta lagu riixayo oo haweenka shaqooyinka ka hortaagan oo caqabado ka imaanaya xagga dhaqanka iyo maaragtay sida maartay odayaasha oo maxaan ku iraahdaa shaqooyinkii iyo xilalkii iyo maaragtay iyagu ay maxay hadda ku xeeran oo aan laga madax banaanaysiin. wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Maryan Axmed Cali oo shirka soo xirtay ayaa ka hadashay ahmiyadda shirkan ay u qabteen. waxaan u mahad celinaynaa hay'adda UNDP oo noo sahashay inaan shirkan qabanno oo la kulano golayaasha deegaanka gabdhaha ku jira iyo wiilashaba iyadoo laga hadlayo gabdhaha iyo arrimaha ay u baahan yihiin golayaasha deegaanka markay ku jiraan in loo sahlo inay helaan loo baahan yahay. adduunka waa jira xuquuqyahaas hadda laga hadlayo dhan waa wax iska basic ah. gabadha markay golaha deegaanka ay ka shaqeyso waxyaalaha ay u baahan tahay intaan buildingka la dhisin ama haddii la dhisay in iyada loogu talagalo waxyaalo badan oo u gaar ah. wasaaradda tan ma jirin markaan imid waxyaalo badan iyadoo wixii ay jiraan ayay dadka u kala socneen. maxaa ka mid ah waxyaalo sahla waa musqulahoo kale musqulihii maxaa isku dhex yaaciyey musqulaha gabdhaha waa inay gaar u ahaadaan musqulahooda inay og yihiin musqulahooda in maxaa la yiraahdaa qufulle ay u leeyihiin oo iyaga ay furan karaan oo xataa qalad looga gelin. gabdhaha inay meel ay caruurtooda ku naasnuujiyaan inay helaan gabdhaha inay helaan meelo ay ku nastaan ay wax ku cuni karaan oo u gaara inay helaan gabdhaha inay helaan dawladda hoose dhexdeeda inay ka helaan jagooyinka ay qaban karaan markii shaqada la qorayo. asad siciid PUNTLAND TV garow.